meel ka duwan adduunyada. qof walba banaanka uu soo baxo. sharciyadooda u gaarka ah markastana cadaaladda gacantooda ayay ku jirtaa. meeshaas barkadaas waxaan ku ciqaabnaa dadka geysta falalka kufsiga. iscafin la'aan, ku laabta qolalkiina. tuugo, rabshado iyo daroogooyin. daroogo kasta ayaa halkan ka heli kartaa. sidoo kale dhibaateen waxaan u sameeyey sidaan ugu dhigo mid adag. iyo xaalad bini'aadanimo oo aad u daran. waxaanoo dhan waxay ka dhacayaan xabsiga gudihiisa. mid ka mid ah xabsiyada dunida ugu adag, sida xadka baxa ah ee daroogooyinka u isticmaalayaan maxaabiista iyo dhibaatooyinka uu sababayo, dhammaan way la socdaan kooxda Delegado. qofna ma doonayo in kaamirada horteeda uu yimaado, laakiin waxaa la sheegayaa in daroogada ganacsigeeda gacanta ku hayaan kooxda Delegado. qofkii darooga haysta ayaa xukunka meesha haysta. xabsiga San Pedro waa qayb yar oo ka tarjumaysa guud ahaan waddanka dhibaatada ka jirta. khubaro ayaa sheegaya 3 qofood ee Bolivian ah hal qof ka mid ah inuu daroogada isticmaalo. 21 oo tan oo daroogada cocaine ayaa sanadkii hore la qabtay. inkastoo aan la ogeyn tirada saxda ah ee daroogada ee dawladda gacanta ku dhigtay. si kastaba ha ahaatee, khubaradu waxay qiyaaseen in dhoofinta daroogada ee sarkac ku timid iyadoo gaartay 420 tan sanadkii. magaalada La Paz halkii garaam oo daroogada cocaine wuxuu u dhexeeyaa $10 ilaa $20. waddan ee si joogto ah dadkiisa u isticmaalaan daroogada, kana dhaca dambiyada noocyadooda kala duwan. Xavi Blanco Alvarez, oo loo yaqaano Blanco, waa 38 jir, wuxuuna ka soo jeedaa magaalo yar oo ku taala Spain. wuxuu xabsiga ku jiraa 7 sano. sidoo kale waxaa ku jira xabsiga ajaanibka leh. Blanco waxaa loo soo xiray dambi la xiriira daroogada. magaalada La Paz meel walba daroogo ayaa ka heli kartaa. waxaa lagu soo qabtay anigoo dalka soo gelinaya daroogooyin, kadib markii booliiska elborka jooga ay ka heleen borsadeeda daroogooyinka aan waddanka keenayay. waxaa lagu soo qabtay 2 kiilo oo daroogada cocaine. dadka ka ganacsada daroogada waddankan waa la xiraa. marka loo fiiriyo sharciga dalka Bolivia, xeer ilaaliyaha wuxuu xukumayaa qofka inuu yahay dambiile, laakiin qofkii dambiga galay ayaa la rabaa inuu caddeeyo inuusan dambi lahayn. Blanco naf ahaantiisa wuu caddeey waayay inuusan dambi lahayn. dadka daroogada lagu soo qabtana halkan ay aakhirkooda u soo dhamaadaan. in ka badan 4 sano, Blanco wuxuu ka baqayaa dadka kale inuu dhex galo. dad xun intaan la saaxiibi lahaa, keligaygana ahaada iga fiican. sanado badan ayaan sidaan u noolahay. qof uma baahni. qof fiican ma arkaysid. qof waliba wuxuu kula saaxiibayaa si uu wax kaaga xado. waa lagu imaanaa, waxaa lagu leeyahay saaxib iyo waran, intay ku sheekeynayaan waxay kaa xadayaan. anigaa saaxiib isla ah iyo diidiinkeyga. Blanco wuxuu lacag ka sameeyaa alwaaxdan. sidoo kale waa faryaamiste, wuxuuna wax u sameeyaa maxaabiista kale. Blanco xabsiga markuu qaybihiis kala aadayo aad ayuu u baqayaa. wuxuuna ka baqayaa in la dhaco, in la dilo, ama in dhibaatooyin kale loo geysto. laakiin wax kasta diyaar ayuu u yahay. nafsadeedoo difaaci kara aniga. waxaan isticmaalaa rashkeetadan ama biinsadan. markaan baxayo waxaan ku qarsadaa jeebkayga gadaal. hadduu qof iska walwaalane waan geliyaa. dalaq. aniga ciyaar ma qoro. isdhaawicidda waa wax maalin kasta ka dhaca xabsiga San Pedro. Blanco ma rabi inuu qolkiisa ka dhex baxo. wax kastana xal ayuu u helay. musqusheeda waa tanaa. musqusha aad ayay u fog tahay. habeenka haddii la gaarana aniga ma baxo. caag uu isticmaala habeenkii wuxuu ku daadinayaa saqafka kore. maxaa yeelay
haddii uu bannaanka u baxo wuxuu ka baqayaa inay dhibaato soo gaarto. xabsi ay ku jiraan manaxayaal iyo cabtooy badan. sidoo kale waxaa ka jirta xaalad bilaadan oo aad u xun. caruur ayaa ku jirta xabsiga oo lagu qiyaasay 300. maxaabiista xabsiga San Pedro qoysaskooda hore ayay u soo wataan. mid ka mid ah haween ku nool xabsiga oo lagu magacaabo Michelle Bondosa Hurtado iyo gabarteeda oo lagu magacaabo Esquela oo jirta 5 bilood, waana maxbuuska ugu yar ee xabsiga San Pedro. Michelle ninkeeda Cesar waxaa loo soo xiray asigoo hub wax ku dhacaya. Michelle wax dambi ah ma laha, si iskeeda ayay halkaan ugu nooshahay, waxayna ka cabsatay dhaqaale xumo iyo familkeeda iyadoo ka cabsanaysa. ninkayga marka la soo xiray kirada guriga waan awoodi waayay. ninkayga wuxuu go'aamiyay wixii hadda ka dambeeyay inaan hal meel iskugu noolaano. anaga waxaan nahay kalsoonidiisa iyo awoodiisa si uu halkaa ugu badbaado. qoyskan 3 qofood ka kooban waxay ku nool yihiin qolkan 60 mitir ah. qolkan si aan ku helna aad ayuu adkeed. wuxuuna ahaa qol aad u wasaq badan ayna ka buuxaan qashin, dooli iyo baranbaro. waxaana ka taxadaraa mar walba inaysan cunugteeda yar iga qaniinin ama aysan cuntada ka wasaqeen. maxaabiista San Pedro ma dooran karaan meesha ay rabaan inay ayaga degaan, waa inay degaan meesha ay helaan. Michelle iyo qoyskeeda waxay heleen qol ku filan, laakiin haddii ay qolkaasi ka dhex baxaan waxay wajahayaan khatar aad u daran. qayb yar oo ka mid ah dumarka ayaa ilmahooda daryeela halkan. ilmaha way iska baxayaan oo isku socsoconayaan sida inay meel caadi ah joogaan oo kale. laakiin meeshaan ma aha meel caadi ah, waa meel aad u khatar badan. meeshaan waa xabsi, caruurtana halis badan ayay kala kulmi karaan. ilmaha keligooda inay socdaan uma fiicna. Michelle si iskeeda ayay halkan ugu nooshahay, aad ayayna ugu xun tahay nolosha ay ku nooshahay. qofka keliya ee og inaan xabsi ku jiro waa hooyadee, laakiin asxaabteeda iyo qaraabadeedu waxay aaminsan yihiin inaan dalxiis ku maqanahay. Michelle waxay garab taagan tahay ninkeeda, laakiin xaaladdu waa mid aad u adag. inkastoo loo ogol yahay maalintii 2 jeer inay baxdo si ay dhakhtarkeeda ugu tagto ama shopping u soo samaysato, laakiin weli waxay aaminsan tahay inay xabsi ku jirto. balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah sababta ay qoysas badan ugu nool yihiin xabsiga San Pedro. haweeney kaligeed bannaan ku nool oo aan shaqo haysan siday ku noolaato way adag tahay. dalka Bolivia ma lahan adeega bulshada, haddii aadan lacag haysan baahi ayaad u dhimanaysaa. gudaha xabsiga San Pedro qoysaska waa isgarab taagan yihiin si aysan 2 meel qarash ugu bixin. sidoo kale qiimo badan ayay ku bixiyaan ilmahooda si aysan u soo gaarin xadgudubyada loo geysto carruurta yaryar.